nin Soomaali ahaa oo ku noolaa waddanka Ingiriiska in muddo ah asiga iyo xaaskiisa iyo caruur oo dhalay ayaa waxay sameeyeen qorshe adduunka oo dhan ka yaabiya ama gaaladii oo dhan ka yaabiya iyo dadkii xataa markaasi Ingiriiska ku noolaa haddii ahaan lahaayeen Afrikaan, Carab iyo dadkii gaalada markaasi joogeen. xataa haddii adiga qisadaas haddii adiga xataa aad dhegeysato waxaa laga yaabaa in ay shock ay kugu noqoto ama aad la yaabtid waxyaabahaas ay sameeyeen. inta aanan gudagelin marka qisadaasi waxaan kaa codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay channelka in aad naga iloobin inaad subscribe soo dhahdo haddii muuqaalkani ama qisadan ay ku cajabisana like ha ka iloobin si walaaltinimo ah. qaybta hoose ee faaladana fikirkaaga iyo dadkani waxyaabihii ay sameeyeen nugula wadaag hana moogaanin asxaabtaada kale taas leedahay way cajabinaysaa la sii wadaag muuqaalkan. waa tahay isku soo noqod wanaagsan. qisadani waxay ka dhacday waddanka Ingiriiska waxayna ku dhacday nin Soomaali ah oo taksiila ah oo lagu magacaabo Cabdicasiis iyo waliba xaaskiisa iyo caruur u dhalay. taksiila ayuu ahaa, shaqo oo nidaam ayuu iska haystay. sida caadiga ahna qofka markuu shaqeynayo sanad kasto ama bil walbo dadka qaarkood way kala duwan yihiin, waxay bixiyaan canshuuraad ay bixiyaan iyo markii ay duqoobaan lacagihii ay dib ay u heli lahaayeen ayay mataqaana ay bixiyaan. in muddo ah ayuuna ku noolaa waddanka Ingiriiska asiga iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa. familkiisa waa isku wada qornaayeen maadaama asiga uu shaqeeyana canshuurta iyo waxyaabaha laga qaado iyo caymiska iyo waxaas oo dhanna magaciisa ayay ku qornaayeen. in muddo ah oo waddankaasi lagu noolaa kadib wuxuu go'aansaday in uu ninkan iyo xaaskiisa ay balaan ay u degaan dowladda Ingiriiska. balaankaasi muxuu yahay marka? wuxuu dhahay waan baxayaa, waxaan aadayaa Soomaaliya. kadibna dowladda ayaa u tagaysaa, waxaa leedahay xaajigaygii waa uu geeriyooday, kadibna lacagtii oo intaasoo sano aan shaqaynaya laga qaadayay ayaa dib lagugu soo celinaya. okay, Soomaalida sideedaba waa dad fikrad abuura ama hal abuur keena, laakiin hal abuurkaasi kadib ma fiiriyaan waxyaabaha kale ugu imaanaan. adduunka waxaa waaye haddii aan saas iyo saas aan sameeyo maxaa iga hor imaan karo, haddii waxaas iga hor imaadaanna sidee uga boodi karaa ama u xalin karaa. ugu dambeyntii ninkii waa uu duulay, Soomaali ayuu aaday. kadibna xaaskiisii waa ay baxday, waxay tagtay dowladda. kadibna waxay ku wargelisay xaajigeedii in uu geeriyooday, kadibna Soomaaliya lagu aasay oo halkaasiba uu ku duugan yahay. dowladdii maadaama ninkan iyo xaaskiisa ay isku qornaayeen magaciisana ay ku qorneed maxaa laha sheegay waxyaabihii oo intaasoo san laga qaadayay ama canshuuraadkii u aruurayay iyo waxaasoo dhan oo magaciisa ay ku qornaayeen, family isku qoran ay ahaayeen. dowladda waxay u ogolaatay in ay u soo celiso 30 milyan oo pound oo lacagta Ingiriiska ah. waa lacag aad iyo aad u fara badan. in muddo ah markii ay kasoo wareegatay ninkii oo ishilmaamay oo isdhahay dowladda way ku ilowday oo waa imaan kartaa ayuu waddankii dib ugu soo laabtay. aerobortka markuu imaaday Cabdicasiis waxaa la ninkan ninkii ma ahayn oo la dhahay wuu dhintay. ugu dambeyntii ma la weydiinay waraan la weydiinay ugu toos ah waxaa loo geeyay xabsiga. intaasoo keliya looguma ekeenine waxaa la soo qaaday lacagtiina waa laga soo celiyay. hadda xaaskiisii ninkeediina ma haysato, lacagtiina ma haysato. ninkii jal ayuu ku jiraa, lacagtiina waa laga soo celiyay. marka qisadaasi ayaa mataqaanaa dadkii oo dhan ay la cajabeen. adiga Soomaaliga ah oo dhageysanayo maxay kula tahay fikirkaaga? qaybta hoose nagula wadaag. haddii aad ka heshana like ha moogaanin, inaa muuqaalka noo share gelisidna ha moogaanin. haddii aad nagu cusub tahayna subscribe-ka ha naga iloobin. waa dhiigeena waxa wax ku shaqeyna waaye. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.